xildhibaanada Kismaayo looga dhawaaqay saa og tahay habraaca doorashooyinka hadda ay Soomaaliya ku binaysan tahay waa hab ay ku heshiiyeen beeluhu intii looga gudbay xisbiyo oo ah 4.5 ay Soomaaliya ku socotay taasoo ah inuu qofku ka yimaado aragtida qabiilkaas iyo dadka uu ku matalayo xildhibaanimada annagu waxaan ka campaign gareynaynay waxay ahayd dadka yagi fariistay loo igmaday inaan u matalno meeshaan waad garanaysaa nidaamka ay deegaanka maamulkoodu hadda gabagabada ahaa waxaa la rabay 7 sano ay dadka xukumayeen inay kasbadaan qalbiyada dadka iyo dadka horumarkaas ay sameeyeen ay tartamaan cabsi ay taa ka qabaan annaga u qorayna dadka xildhibaanadii mana filayo haddee waxaas inay wax saxa noqon karaan qof waa inay dadka uu matalayo ay ka warqabaan wada hadal iyo talo kiisna uu ku yimaado haddii uu matalaad qabo waa tahay bal dhankiina xildhibaano ayaad ku dhawaaqdeen haddii aad daliilsan tihiin qaabka xildhibaanada loo soo xulay qaabka idinka aad u soo xusheen ma isleedihiin sidii sharciga ahaa ayaad u marteen waan isleednahay sidii sharciga ahaa baan u marnay sababtoo ah aniga ahaan hadda qoyskay aan ku matalahayo kursiga fadhiyo badan baan yeelanay iyo maaragtay odayaashayada dhaqanka taladoodaasana aniga ku imid oo igu soo gudbiyey balse ahaateedee waana kulley dadkayga waxa ay qabaan baan anigu ku matalahayaa ma aha mid oo qof aanan qabiilkii iyo ummadii oo qofkaas matalayay tala ka haysanin inuu qof iska magacaabo meesha afkar ma aha waa tahay bakaal hadda magaalada Kismaayo maanta laba garab ayaa xildhibaano looga dhawaaqay maxaa xigi doona ayaad isleediin talaabada xigta oo idinka aad qaadaysaan dhankiina isbedel doonka ah muxuu yahay wallahi anagu waxaan matalaynaa waa shacabkayga waxaan ku nimidnaa waa rabitaanka shacabkayga waxaan rabnaa inaan ku shaqeynana waa rabitaanka shacabka ma aha qori iyo handawaad iyo qaylo dad saaran waxaan leeyahay haddii aad shala boosteen oo daraad boosteen maanta shacabkii ayaa diidan oo qaylinahayo u tura shacabkiina waxa falsada ana ka daaya ummadda intaas ayaan dhihi lahaa kulley waana filayaa inuu aqligu shaqayn doono waad garan kartaa wax kastoo la boobo cawaaqibka ay leeyihiin Jubbaland 7 sano ay dhisan tahay waxay ku guuldareysatay in ay madaxdeedu tagto inta xataa xorta ah ee shabaab laga xoreeyay inay si sax ah u kormeeraan oo tagaan oo horumariyaan oo nidaamka gaarsiiyaan bay ku guuldareysteen wax kastoo boob ku yimaado qanaacada dadka ma keenayso hadda hadday boobaan dib u dhac kale unbaa yaa ka imaan lahaa laakiin hadday odayaashii iyo dadkii shacabka ahaa ay baraarugeen oo yiraahdeen haddii shalay iyo daraad aan isbiri bal hadday nimanku boobeen ama ay wax soo kordhiyaan asiile ay soo kordhin waayeen waxaad moodaa hadda shacabka taladooda in la qaato inay mudan tahay waa hagaag wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka waxa ay sheegtay natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka Jubbaland in aysan aqoonsan doonin labadiina dhinacba xagee wax ku wadaan dawladda federaalka waa sax waa dawladda sharciga ee dalka ka jirta ayadaa laga rabaa nidaamka inay saxdo hadee ayadu shacabka ay u dhaaratay oo kitaabka u mareen danihiisa ay ka turjumi waayaan waxa weeyo ayagay mas'uuliyadaas dusha ka saaran tahay ayagaana laga rabaa inay fuliyaan nidaamka dalka aysan dad kale iyo ummad kale aysan ku halaynin bay'aad meeshaas ka imaatana mas'uuliyadooda ayagaa iskale maxaa yeelay intaas odayaasha iyo shacabka iyo bulshada iyo dhalinyarada iyo hooyooyinku qaylinayaan mas'uuliyadday u dhaarteen weeye waana wax aakhirana la weydiinayo adduunna la weydiin doono ayagaa laga rabaa inay meel saaraan inaysan meeshaas caqabad ka dhicin bakaalka oo ka xildhibaanada cusub ee isbedel doonka marna soo ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gado aad baa u maasanta mudane